dhigayso allana barbarkeen xisaabso نيسو إلى الحروني وقوشنا عكن الحديدة على أوريني حنوجي معن ألقى حفلتن نيسو إلى الحروني وقوشنا عكن الحديدة على أوريني حنوجي معن ألقى حفلتن بريتان وضع هادلينا مروقتنا حيتا جيلان شمس كيجي سيما حبيبتي همي وناكسن قالي مسلسل كان وحى له أصل 24 تي في سيدا وريم سيدا سوكي بلي سقجايا وارك حلي gabadhayda dadkani way hurday adig saacadda maxaa ku soo jeediyeen hooyo cumar ayaa soo wacay wax dhiba ma jirana gabadhayda maya shaqo fudud ayuu ii helay sidee wax noqon doonaa waayahay ma ogi hooyo aniga deyntan laygu leeyahay haddii laygu lahaan lahayn cidaan umama shaqeeyan aniga waan ogahay aniga tamir guriga salaad ka shaqeyso laakiin aniga darafayaan haysta gabadheedii hooyo xaaladda waan u jeedaa haddii cumar lacagaan weydiisan lahayna ma weydiin kara asigaa garaash gatay guri gatay marka qof deen lagu leeyahay si aan lacag kale u weydiiyo way uga adag tahay hooyo asiga ayaaba lacag lagu leeyahay waa runtaa gabadheed inaan lacag weydiiso looma baahno aabbahan arrintan lama socdo waan ka qarinay waan ogaa hooyo cumarna jaanis aan kula sheekaysto waan waayay asigana shaqul ku mashquulsanya anna sidoo kale gabadheedii anigu waxaan ku dhaho maba aqaanbo ee culays aan qaadi karin dushayga saaran gabadheedii hooyo maxaa dhacay qaladkaa sheegaysasa waa maxay aniga soo gabadhaada maahayd aniga ayaa ku nool hooyo deyntan aniga ayaa kaa gudaya deeq ii deen waxaan rababa aan ku keenay isteji marka hooyo waan ku baryaa gabadheeda qurux badneeda ma sidaasaa
soo dhawow jaylan subax wanaagsanoo wacan wanaagsan firiya dhibaato miyaa jirtana maxaa dhacay may aynan kula hadlan doonayay arrin yaroo maskaxdeeda ka dhex guuxay inaan kuu sheego maxaa waayana run ahaantii anigu shaqadaada waan la dhac waanan ka helay inan wanaagsanna waa tahay ee waxa aanan ka hadlan waxay ahaayeen mishaaraadkaga waxaan doonayna ka wada firiya waad ogtahay sababtaa u shaqaynaya inay tahay deyntan inaan bixiyo sidaasay tahayna waan ku arkaa run ahaantii si khaldan baad u fikiraysaa marwo waan ku baryaa waayahay waan ku dareemi karaa run ahaantii deyntan in yar waanaad iskaga jartaa macquul maaha iska daa hadalka badan waxaan ku odhan lahaa lacagta bashqadan ayay ku jirtaa intaad ugu tala gashay inaad iska goyso waa inaad iska goysaa ma loo baahna mana qaadan karin waad mahadsantaha cumarow ilaahay gacantaada ha barakeeyo mahadsanid soo dhow walaalkay siisan shaqadii ugu horraysa miya aan qabsanayno waa saxan tahay ilaahu adaa mahad iskale nimcadaadan waa ku shukrinay shaydaanka asigahay hadda lugaha ayaan ka jajabaynaynaa cid naga guulaysanaysa ma jirto annagaa guulaysanayna weligeenba igu taal jaakadii ka hadleen baahim ku haysaa xameel cunay raashinaa noo keenay may gaajo maysa fuulana ma maxaajiya raashina soo siisay alxamdulilah cumarow dhegeysa waa ku maqlaa sheekaan rabaa inaan kula wadaago naagta ayadahayd ma xasuustaa oo gabadha waa kala hadlayaan ku dhahay ii wad haye war naagta shaqo wanaagsan ayay haysaa anigana waxaan rabaa jiilaani shaqadaas inaan geeyo oo aan ugu soo dhammeey mana rabo shaqada gumaysiga hadda ay ku jirto waan ogtaa shaqadaas waa gumaysi saaxib fursadda ugu dambaysaan haysanaa ee dhaafin gabadha shaqada dhegeyso marow maliis way diida kafeegaan mid cusub u kari hadeertaan saaxiibay maxay tahay murugta kaa muuqatana shala waxaan aaday mister taylan meeshuu shaqada ku qabsado waanba ilaawi inaan kuu sheego shala meesha markaa kasoo tagta taylan ayaa isoo wacay wuxuuna yidhi meesha way kasoo tagtay inaad kasoo tagtana ma fiicneen oo maxaad iigu sheegi weysay markaa shalay iga tegay shaqo badan ayaa ii taalay haddana maliisa ii imaaday shaqo kasii badan ayaaba ii dirto mudan taylan waa qof fiican qof xun maba ahaanba asaga ilaahay ha kaa cafiyo walaashay aytul anigii cumar ayaa meeshaas isku raacnay run ahaantii reerkan dhaqankooda ayuu la yaabiyey waxa ka qaldan intaba cumar wuxuu hore wuu iskaaga hadlaa hadalkiisa kasoo qaad maba lahanba shaqo cusub ayuu ii helay wuxuuna dhahay reerkaas la soo hadal kana soo tag adiga muwaalintaana dadkaana u imaaday shaqo ayaa ku siiyeen haddana waxaa rabtaa shaqo kale inaad geshid yaqa shaqadaas kale iska dhaaf tanaa kuu fiican tanle iska jooga adiga aniga marwada xitaa waan la hadlo waan u sheegay shaqadaa markaa dhammay kadib inaan baxo hadda go'aan maaba soo qaadata adiga go'aan ayaa soo qaatay marwadana waxaan ku dhahay lacagta halkaas ka soo qaato ayaa deynta ay igu leedihiin ka bixinayaa saaxiibay dhegeyso adiga reerkan si fiican uma aada baran lacagtan aad ka hadlaysan waxaa laga yaaba inayba kuu cafiyaanba mar ayaa mesajii soo diray muxuu ku dhahayna ii sheeg shaqadan kuu haya ayaa wanaagsanay imow jeelaa adiga lacag ayaa lagugu leeyahay waa ku baryaa shaqadaada joog lacagtaa tartiib iskaaga bixi ayaan ku dhihi lahay aniga teeda kaleeto shaqadan dhibka badan leh haddaad maanta iiga tagto waxay u dhigantaa meel cidlow cadow jooga adigoo iiga tago cimrigayga inta ka dhiman kuma hilmaamaayo aniga teelana quraacdiisa u qaadayaa mudan teelan arrin kaloo muhiim ayaan ku hayaa waad ii sheegi kartaa qofti jeelaa ahayd cumar ayaa shaqo u soo helay waxay rabtaa inay shaqadan ka tagto ee shaqada cumar u soo helo aadi warya allayo rasuul yaqaan oo ninkaas naga qabta nimay shantaada kaa dhicin sharci kaama dhiciyo aniga aqaansaan yeelay mudanahayga quraacan kuu keenay ninkan wuxuu ka soo laabtay magaalada karis haddana halkan garaash ayuu ka furtay
runaantii dadka idil waa ay jecel yihiin intaas hore aytuul ayaa iigu sheegtay waxaan kaa rabaa kaaris inta uu jooga sheekadiisa inaad iisoo gudbiso macnaha dhanka canshuuriska miyaa ka wadaane qayb 93 ayuu qaabilsanay marar badanne ruushka ayuu tegey baglodoon shirkadiisu ka howlgalaya miya waad saxan tahay waa isla iida ugu horreyn farhodiin waa aan ku salaamay qofka kula hadlaya waa taylan sidee tahay niyo waxaan kaa rabaa hawl yaroo muhiima inaad ii qabato marka hore su'aal ayaan rabaa inaan ku weydiiyo jidgooyaroo laydhigaan rabaa inaad iga hor leexiso jelen maxaa dhacay ma ila hadlaysid xitaa see wax u jiraan cumarkayga maxaa kugu dhacay adigoona xaaladdeydii wanaagsan miyaad odigu bilaabeen inaan ku salaamo waa ilooba sababtoo adigan kaa fikiraan jelen aniga haddii aad iga fikiraysa halkaanaan iska joogo walaashay ayatul xitaa waxay igu tiri halkaan iska joog una rabaan inaan ka soo tago reerkaas walaashay ayatulna way la hadasho waxay tiri iska joog waxay kalay dhahda mudana taylan ayaa isoo wacay walaashay ayatulna wuxuu ku dhahaa jalaan maadaama gacanta ay xanuunayso maalmaha iska joogta gurigeeda dadkaasoo dad fiican maaha inaan u shaqeeya ayaa wanaagsan adiga haddaad raalli keenno waan iska dhaafayaa jelen marxalad noocaasoo kale inaan maqla ma rabo waaya ayaan iska joogo waan ka hubaa dhibaato kama imaanayso waaya haddii aan maanta halkan kugu hayo dhibaatadu kaysan baaba'aysaa marka oo ma iloobaysaa waa mahadsantaa geesigayga waan ku aqaanaa jeelan iima dambanis oo madax adagta maxaa soo naaci hoos diyaariye maa waad ogta haddii kale waan daahaya aniga labiskaygaa badan jeelan macmacaankaa jeclaayaa ii soo sameeyey talow hooye gacantaada allah kuu barakeeyo wiilkayga caafimaad iigu cun sidaasaaamiin hooy ceebtayna asturtay ceebtaada 1 jeer allah asturo meel idinka dhow allah idinka siiyo aamiin walaashay hooye xaajiyo macmacaankii waan cunay xamsa munga unug afku waa maciisaniye ee arrinta guurka ilmiyaan ma laga warmaayo use ani mugo fikirkii haddii aan ka waran wax kale ma ahee 3 asbuuc gudahood waxaan rabaa faraanta gelis inuu isdhaco haddiis alla idmo musalsalkani wuxuu gaar u yahay asal 24 tv waa minuu eebba yidhaah aabe haddii aad raalli ka noqonaysa xataa waxaan rabaa faraantigeliska inuu noqdo mid gaabagaabaya oo qarashka uusan badan haa cumar hadalkiisa waa run labada famil haddayba isfahansan yihiin aroos weyn looma baahna waa iska macquul arrinka laakiin intaan wax ka bilaabaynaa waa yaaba xamsa arrintaan naagee u taalaa inaad soo faragashad ma aha unakaa naqaana wixii isuu biheeno haddii wiilkii gabadha isku qanacsan yihiin xamse waxuba kama dhahaayo arrintaan sax ma odagayga ruug arrintiisa loogama roono saas haddaan isku afgaranna macnaha arooskan raacinaynaa digaarkay neefsa nafaad leedahay faraantigeliska lee noogu ekay hoosh aroosaan la gaarsiin dabatayna maaha aabe iindo xafladayda dhalashada guriga aadaa loo qurxiyey arooska walaasheena sidaas si lamidaasoo loogu saa rabtaa wax leela soomaan aabba hadalkayga ii sheeg si fiicana loo qurxinaa waa ku jeclahay gabartay saa rabtaana lagu yeelaa ee ka cabsada wax yar ha layga raalli ahado teleefon ay soo dhacay
oo Mr. Qaasim ay soo wacay waan ka qabanaa raalli hadaya halow insha allah wax walba inoo hagaagaa wax naga halaabaa habiraatee ma jirto ilmahaan ilmahooda rabna inaan aragn intii nafta oo inoogu jirto unuka insha allah insha allah insha allah shaaxaan soo diyaarinaya wax yar sugan waa mahadsantaa gabartay waa kuu duceeye jeelan waa baxa waana soo noqonaa okay intee qaasin ay soo wac bannaankuna taagan yahay waxaan ku qasbana marka inaan guriga keeno soo wado muxuu u yimid wallahi wuxuu u yimid war uma hayo laakiin marka hore waa inaan soo wadaa guriga keenaa okay bye habar yar maanta o dhan saana ayaan isu fiirin wixii aad weydiin lahayd i weydii wiilkayga gabadhan faraha ka qaad waana arki jir waxaad jeceshahay oo weysid sidaan laakiin ma aadan noqon jirin gabadhan maxaa ku daba dhigay habar macan waxba ma jiraan waan ogahay fideogii dharbaaxdee madaxaaga ka dhex guuxaya waxaad rabta gacanta inaad ku dhigto way kuu suurtageli weysay marka faraha ka qaadaan ku dhihi lahaa habar waa taqaanaa hawl aan qabyo kaga tegay weligeed ma dhicin anaa dhammaystiri doono ciyaarta ilaa aad ku guulaysato faraha kama qaadaysid miya weligay guuldaro ma aanan qaadan habare waxaan ka baqayaa inay adiga wax ku soo gaaraan naagtaas nin ku daba nabadna aniga shaki weyn ayaan ka qabaa anaa meel iska saaraayo iska daa adiga maxaad ku samayn rabtaa taylan dhinac kale ayaan wax kaa tusayaa gabadhan isku leebar ma tihin isku darajana ma tihin marka waxa ku wanaagsan inaad faraha ka qaaddo sharaftii kaa bastooladayn ugu horreynaad adiga sheekadan xaggee ka keentay middeeda kale qaabka adiga aad u aragtid miyaad rabtaa gabadhan inaad adiga iigu sharaxdo maya middaa suurtagal maaha haddana waa aan kaa sii tegay bas sheekada iga xir aad sii tagtid maxumee kaale maxaad samayn rabtaa ulajeedkaaga muxuu yahay bas iga dheh adiga kaalama waxay kula tahay hadalladan aad igu dhehaysid xanaaq aniga ahay inuu ku baaba'ayo sidaan ogama haray cimrigayga inta ka dhiman waa daba taagnaan doonaa maxaad ka beddeli kartaa aniyo cumar arrintan inaan kuu sheegay maan doonayna laakiin duruuftaa keentay waxaynu samaynana ma naqaan garashkan hadda laba ii furayaan laakiin xoogaa asagii ziiza isbuucina u furantahay usmaaba wax badan u furantahayba meesha hal isbuuci meeshan ii furantaa saana kusoo gabagabaynaa marka see u jiraan arwaad sanaakiisteelo qadaadicda ku dhimareen iga qaban umama iga dhaafo qalli uma baahni waa isku filanaa ninku farriin buu naga doonayay maxaan ku dhahnaa waa yahay markaad shaqada ka tagtay kadib meeshii oo dhan dee mas-uuliyad darraa ka timidoo alaabtii meesha taalloo dhan waa lagu ciyaaray waxaasoo dhan aaday dusha kaa saareen dee fikir deeniyo waxaynu samayna ma naqaane ilaaha ku badbaadiyo mooyo caymiska xitaa kuma badbaadin kara ma naqaan waxaynu samayna saaxiib cumar unuku waa iska sii baxayna idinka la sii sheekaysto waa idin firaaqeeyna sidaad iga tegaysaan macnaha wax gooni ninkaan aan ka sheekaysanna ma jiraan waa inaa fadhisaan maxaa idinka qarinaya waxaa idinka qarin hay qudra xato markayga aabba hadalkiisa wuu saxan yahay musalsalkani wuxuu gaar u yahay nagu raaligelin baynu bixinaynaa laakiin dee inaad cumar faajisaa wanaagsan la hadalba tv maya walaa sidaasaa dhihin cumar adiga xitaa si xad dhaafa ayuu kuu jecelyaha waan hubaa waana qof wanaagsan cumar cumaroo meesha anigu malii kowdhe laakiin dee haddaan anigu lahaan lahaa wax badan baan kuu qaban lahaa run ahaantii waa dareemi karaa qaasi aabba xamse arrinkan siduu ku leeyahay adeerkayga aniga wax kasta waan dareemi karaa haddii aan la bixinna ninkan waxaa laga yaabaa inuu culays soo karo marka inaad baxdaa ila wanaagsan anigana waxay igula rayleed inaad meeshaas tagtay gaarkii inankaygii waad ogtahay anigu fursad labaadan dib ugu soo noqonayo inaan helaynin cumar walaalka ha ka tegin waan ku baryaa
qaasim ordiska sii bax waa kaa daba imaana insha allahu tacaala annagu waan ku ducaynaya ilahay khayr ha ku siiyo musalsalkani waxaa loo tarjumay aniga halaan kadib sii joogin waan baxeenaa ina keen odagayga soo baxnaa waa maxsantahay gabartee hadduusan qaasin ahaan lahayn marnaba kaama tagin qaasin dartiis ayaan kaaga tegi macanjo gacali anigu waan fiicanahay waadna iska bixi kartaa walwalka iska daa aniga waxba iguma dhacaayaan 6 bilood oo keliya ayaad iga maqnaanaysaa waxaan dareemayaa cidlo oo keliya 1 sanana waan ku sugi karaa adiga habeen iimaan ayaan noo shaqayn doonaa waana igu balan bayaan kugu soo noqonaa niyadda waxbaa iska dilin ma maqashaa maxaa waaye guriga bakiil keyrada ka yaraysa ma maqlaysid miya cabbiraa ku socdaan marana guriga